dadka meelaha magaaladu soo gaadhay baraagaha ku dhex yaala leh waxa weeyaan baraagahooda inay dhulaystaan oo ay ka awdaan dadka haddii ay awdi waayaan annaga cagaf gelinayna ku awdayna sida ha ogaadaan barasaabka gobolka Hawd Axmed Eegayare ayaa fariin u diray bulshada barkadaha ku leh magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd waxaana ugu baaqay inay oodaan barkadahooda si ayna dadka waxyeello uga soo gaadhin oo ayna ugu dhicin maadaama oo ay bulsho kala duwan ku geeriyoodeen qaar ka mid ah barkadaha bannaan ee bilaa-ooda ah ee ku yaala magaalada Balligubadle isla markaasina ay dhawaan barkad biyeysan oo ku taala gudaha magaalada Balligubadle ay ku geeriyoodeen laba carruur ah oo 7 jir iyo 10 jir ah fariin baan doonayaa halkan u mariyo xalayto halkan waxa ku geeriyooday laba dhalinyaro oo midna 7 jir ah midna 10 jir ah barkad baa laqday sida aad u warhaysaan saaka ayaan soo aasnay halkan fariin waxaan uga dirayaa baraagaha cid la'aan ma aha dad baa leh dadkaasi wax jooga iyo wax maqanba way leeyihiin fariintan ka barsaab ahaan halkan uga diray waxa weeyaan baraagahooda inay xafitaan oo ay albaabu samaystaan oo jiingad ku xidhaan barasaabka gobolka Hawd waxa uu digniin adag u diray dad kale barkadaha magaalada dhexdeeda ku yaala ee bannaan ee aan qaarkood lahayn mus iyo moostoona waxaan u sheegay haddii ay dadkaasi ay bulshada ka dayactiri waayaan barkadahooda in cagaf la gelin doono oo la aasi doono barkadahaasi dadka meelaha magaaladu soo gaadhay baraagaha ku dhex yaala leh fariintaasi inay gaadho ayaan jecelahay iyagana waxa weeyaan baraagahooda inay dhulaystaan oo ay ka awdaan dadka haddii ay awdi waayaan annaga cagaf gelinayna ku awdayna sida ha ogaadaan gabagabadii barasaabka gobolka Hawd Axmed Eegayare waxa uu tacsi u diray qoysaskii ay ka baxeen labadii dhalinyarada ahaa ee ku geeriyooday barkadaasi waxaanu qoysaskaasi alla uga baryay inuu alla samiriyo iimaan ka siiyo waxaan halkan iyagana waalidiintii awlaadaasi ka baxday in ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbiga u qaboojiyo in ilaahay cawil khayr qaba ilaahay siiyo ayaan iyagana ugu ducaynayaa maxamed jiciir axmed TV qaranka Soomaaliland magaalada Balligubadle